waxaan doonayaa inaan mahadnaq iyo ammaan u soo jeediyo Axmed Cismaan Geelle. Axmed Cismaan Geelle waxaan bartay 86 bay ahayd. Djibouti baan joogay, WHO ayaa markaa aan joogay. waxa qof baa telefoonka igula hadlay. af Ingiriisi buu igula hadlay. Djibouti badanaa Faransiiska lagu hadlaa, laakiin Ingiriisi buu igula hadlay. wuxuu igala soo hadlay halka reception-ka af Ingiriisi xuura kala yiraahdo the Queen's English ayuu qofkan igula hadlay. waxaan doonayaa inaan baryada kuugu imaado oo waqtigaaga qaaliga aad yara siisaan doonayaa waxaan doonayaa inaan ku imaado ama appointment aad siiso. marka waxaan walaal akmid Ingiriisa soo lumayo waxa laga yaabaa inuu ama markab saaraa ama transit yahay wada Ingiriis kama filayo, Djibouti kama filayo. marka ballanta ha u dhigin waqti foge waxaad tiraa halkeed imika igala hadlaysaa haddaad dhowdahay iminkaba kaale. marka albaabka waxaan filayaa in qof indho buluug leh, timo cad leh, saan cad leh inuu iga soo galaan eegaya. waxa ii soo galay nin madow oo dhuuban, wuu dhuubnaa berigaas aaway umal khayr madaxooyadii intuu dhalay ma joogtaa. nin aan dheerayn oo dhuuban oo madow oo Soomaali u eg. marka waxaan isleeyahay malaha kii cadda uu ka sii dambeeya. way af Ingiriisiga aan maqlaayay kamaan filaynin ninkan yaree Soomaaliyeed imika soo galay kamaan filayn. wuu soo galo albaabkii buu xidhay inankii Soomaaliyeed. markaasaan soo fadhiistay ma cid baa kula socotay hooyo. markaasaan no thank you very much, you just gave me an appointment. masha Allah, ninkii af Ingiriisiga igula hadlayay ee aan filayay inuu noqdo qof ajnabi ah, Axmed Cismaan Geelle ayuu ahaa. marka ilaa berigaa waan qiinay kartidiisa, waan aqaanaa hawlaha badan uu Djibouti u soo hordhiyay iyo Somaliland waan la socdaa. waxaan leeyahay howlkanaad samayseen wax weyn buu noo soo kordhiyay, Somaliland u soo kordhiyay howlkan quruxda badan ee soo gaarsiiyay quruxdii iyo sharaftii iyo nidaamkii heerka aad soo gaarsiisay. waan kugu mahadnaqaynaa hooyo. marka qofkii wax wanaagsan soo kordhiya ummadeenu buu soo kordhinaya. Axmed Cismaan Geellena waa tacliintu way ka muuqataa, af Ingiriisi uga muuqatayo dee intuu inoo yimi uu ka duwan yahay baacmisharigeena kee lacagta haysta. wakaa intaasoo warshadood buu sameeyey, kaasaa kutusin wax bartay oo af Ingiriisi wanaagna ku fiican ku hadlayo. markuu joogay Djiboutina waxtar buu ahaayo. waxaan xasuustaa 2009 baa siyaasiyiintii la isugu yeedhay meesha la yidhaha Djibouti oo uu imanayay sarkaalka gabadhii Maraykan oo gender afreysanaysa. marka Djibouti markii la tegayna anaga Muuse waa socono. Muuse abtiyaashii bay ka hor yimaasho kambiisay u qabteen. anoo cidba aniga isaga hor yimid anoo isla cidla lagaaga tagun buu Axmediin oo yiri kambiisan kugu qabtay ma ogtahay. markaasna waxaan xasuusto waxaan ku yiri inagu isdeegaan ma hoosta ku isku deegaan baan naho bari baan oo jaamacadda ka dhigtay Ruushka ayay 12 siimaan ka yimaadeen. siimaan ay yimaadeen meeshaan joogayo ana markii bay heleen mankii waan isbaranayo markii dambe yiraahdeen ardayda noo sheego siimaan iskalaabkana ardayda ugu yeedhay waxa yani nima waxa jimay reer Somaliland reer waqooyi oo siimaan ah. 12 mid ba Arabka ahaa badanku habar jecel ahaayeen qaarna habar yoonis. halkuu bay iska heleen kuwii reeraha ahaayoo kii Arabay u soo haray intii laga haystay. marka baashu waa in kaasoo Axmed Djibouti iyo shafiica qaaday ma ogtahay.